waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dagaalka muhiimadiisa koobaad waa wali waa muhiimadiisa koobaad mana istaagin waa socdaa mana istaagayo ilaa khawaarijta dalka laga dhameeyo lagana xoreeyo hadii Allina gaadmo mar walba waa dhaqankeed hore u ahaa jirtay dooyinkan dambe magaalada Muqdisho khaasatan oo ah caasimadda Soomaaliya wajigii Soomaaliya oo inay wajigeeda mar walba xumeeyaan ay ka shaqeeyaan waa laga celiyay waana laga hagaajiyay laakiin hadda marmarka qaarkood gaadmadeedu way dhacaysaa tii u dambeysay na waxay ahayd gaadmooyinkaas gaadmo kamid ah ayaduna muxuu ahay intii uu dhimatay iyo intii naga dhaawacantay ba Allah u yasiro taas marka dagaalka waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u xaqiijiyo in ay sidiisii u yahay waxba aan iska bedelin muhiimadii koobaadna dawladda wali u yahay waxaan rabaa inaan u soo noqdo arrimaha siyaasadda iyo dawlad dhiska walaalayaal dalkan taariikh dawlad dhis ayuu leeyahay khaasatan 24 sano ee u dambeysay laga soo bilaabo markii jamhuuriyadda saddexaad la soo aasaasay ee laga yimiday Carta intii ka dambeysay doorasho dalka ka dhaceysay si nabad ah oo aan colaad iyo dagaal ku jirin ayaa xukunka la isaga bedelayo oo la isaga wareejinayay intaasi waa in adduunyada in badan oo kamid ah nalamida aanay haysan adduunyada meel badan oo kamid ah doorasho kasta iyo isbedel kasta oo dhaco dagaal iyo colaad iyo dhiiga ku daato waa la isku dilaa waa la isku diraa alxamdulillah annaga Soomaali haddaan nahay ma ay dhicin 2000 iyo maxaan ku raadaay 12 ma dhicin 2017 ma dhicin 2022 ma dhicin hadda wixii ka dambeeyna insha Allah ma dhici doonto waa ka sii hagaagi doontaa laakiin muhiimadda doorasho ay leedahay waa maxay fursad in dadka loo siiyo hoggaanka ayagu ay ku kalsoon yihiin in ay soo doortaan oo qofku oo fursad u helo Cali iyo Caashe iyo Maxamed iyo maxaan ku iraahdaa Cambaro waa kala dooranaya Cali ay fiican Caasha ay fiican inuu dhihi karo taasi muddo waa naga maqneeday wakaalasho iyo wakiilad iyo dad wakiilka ah ayaa maxaan ku iraahdaa sameynay iyada la sideeduna wada socoto oo soo kordhaysa maalin walba ayay ahayd 135 oday ee khiyaarteen ahayd odayaasheen ahayd ee hawshan noo bilaabay ee baarlamaankanadii ugu horreeyay noo soo xulay muddadii ku meel gaarka ahayd shaqo fiican ay ahayd oo la qabtay dadkii inta isu yimaadeen maanta maxaan sameyn karnaa kanaan sameyn karnaa aan sameyno waa la sameeyey waa lagu soo caano maalay 2017 bilowgeedii waxaan dhahnay meeshii horena ma joogi karnaa aan soconno oo duruufaha cusub oo dalku u maraya aan ka jawaabno oo ahayday dalkii inuu nidaamkii federaalka ka hana qaaday dawlad goboleedyadii dhismeen xukunkii baahay hoos loo dadejiyay hal darajo ugu yaraan sidaas daraadeed marka meeshii hore ma joogi karno oo ma dhigi karno odayaashii aan u noqono ee dadka aan noo soo magacaabaan waa inaan duruufahaas cusub ee soo kordhay waa inaan la jaan qaadno oo aan maxaan ku raadahay waxa ay fursadaas dadka ay ka faa'iideystaan xukun baarlamaanka la qaybiyay waa la kala qaaday xamara baarlamaanka hor lagu doortay dawlad goboleedyada loo kala qaybiyay colaad iyo dagaal ayadoo aanay ka dhicin dawlad goboleed kasta doorasho ka dhacday dad wakiilo ka ah dadkii oo tiro 135 odayna ka badan ayaa codaysay 14,800 oo qof ayaa codaysay 15,000 ku dhawaad qof codaysay oo Soomaali ah oo kala dooratay dad jufadii hoose ha ahaadaan qabiilkoodii ha ahaadaan reerkoodii ha ahaadaan laakiin meesha waxaa soo istaagay dad la kala doorto oo intaa wakiilada ahayd oo wakiil ahaan bulshada looga soo xulay ay kala doortaan waa soo marnay waa ku soo caano maalay baarlamaankii kan ka horreeyay ayaa sidaas ku dhashay ku shaqeeyay 2022 war meeshii hore maan joognaa maya aan wax ku darno dadkii kontonkii kowda ahaayee leeyahay 100 iyo laga dhigo iyo kow intii hore u codaysay laba jibaarkeeda codaysay codayn doorasho markasta ciladana waa leedahay tabashooyinna waa leedahay ka eed sheegashana waa leedahay marne doorasho 100% sax ah ila doorashadu waa fikir iyo talo bina aadan maamulayo wixii bina aadan maamulayana mar walba nusqaan kama dhama iyo in ay cilada leeyihiin laakiin haddana doorashadaas dhacday
labadaas jeero soo dhacday aan sheegay marka laga yimaado odayaashii layskuma dilin layskuma laaynin waagii Soomaaliya dimuqraadiyad waa la dhihi jiray oo lixdameeyadii xurriyadda aan qaadanay oo Soomaalinimadu intaan ay ka xoog badneed oo dadku dareenkooda oo isku duubnaa doorashooyinkii dhacayay dagaalla ka dhici jiray 69kii doorashadii dhacday waa la garanayaa dagaalla ka dhacay ciidan dawladeeda lagu laayay dad shacab ah lagu laayay meel doorasho ka dhacaysay la gubay iyo wixii taagnaayo dhan laakiin nasiib wanaag dadku waa soo kordheen maankoodu waa soo kordheen colaadana waa ka daaleen dadka birigaas waxa laga yaabaa inaan colaadi kama dhicin labadii jeer oo isdooran shil hal iyo laba iyo meel qaarkood waa ka dhacdhaceen laakiin colaad kama dhicin dadku waxay dhigeen colaad qabiil ah dhici doonto qabiilka isdili doono qabiilka dhexdiisa isgeli doono kama ayan dhicin 2000 iyo tii dubisa 2020 saasay ugu dhaaftay hadda marka duruufteennii waxbaa iska bedelay duruufaha dalka waxbaa iska bedelay dhul badanaa xoroobay mid kale hadda lagu sii socdo oo sii xoroobay haddii alla yiraahdo dadkii Soomaaliyeed ee shalay nimankaasi khawaarijta ay dul fadhiyeen dul hoganayeen oo ay dhibka ku hayeen cabsida ku hayeen maanta intii hore in badan oo kamida yaas dadaa weli noogu dhiman oo aan u taaganahay insha Allah inaan ka xoreyno ayagana ay ka xoroobaan laakiin dad badan iyo deegaano badan ayaa ka banax banaanaaday khawaarijtii duruufaheena waa taxassun yani wanaaga yimiday wanaagaas ayaan rabnaa siyaasadana in la jaan qaado oo dadkaasi ay tagaan meeshii la isku dooranayo oo ay doortaan qofka deegaankaasi dantay u arkaan haddii ay tahay midka deegaanka hoose jooga ee dawladda hoose iyo shu'uunta degmada maamulaayo iyo haddii ay tahay midka ay u soo dirsanayaan inuu wakiil uga noqdo muxuu ahay danaha qaranka iyo masaalixda qaranka iyo meesha Soomaali ay talada isugu geysanayso intaba waana suurtagal waa samayn karnaa 135 haddaan ka nimiday oon 15 kun nimiday oon maalintii ku xigtay 30 kun nimiday maanta waxaa suurtagala dhowr milyan inay codeeyaan weli waxaa laga yaabaa intii aan rabnay meeshii aan rabnay dadkii aan rabnay inay wada dadka Soomaaliyeed oo dhan inay codeeyaan ama dadka dibadda jiro diasporada xataa Soomaalida ha codeeyaan inaan dhahno weli ma inaan gaarin waa qodob ma tabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa uu yiri ninkii taaka iskuma hubna ee tabar aan guurno maanta waxa aan samayn karno ayaan samaynaynaa mar walba bariyahaas horena wixii aan samayn karnay ayaa la soo sameeyay maantana waxa aan samayn karno waxa ugu fiican oo suurtagalka ah yaan samayn doonaa dalkeenu siyaasadda meesha ka jooga shuruucdii iyo nidaamkii ciyaarta doorashada lagu gali lahay waa noo sameeyeen laakiin ayaguna sidoo kale waxay rabaan in la waafajiyo ahdigan cusub iyo duruuftan cusub sharciga doorashada waa yaala sharciga xisbiyada waa yaala sharciga guddiga doorashada waa yaala laakiin duruufihiina waa isbedeleen waqtigeena waa isbedeleen dadkii mas'uuliyiinta nooga ahaa qaar in badan oo kamidna waqtiga ka dhacay so inaan dib u eegno oo aan marka shuruucdii dib u habeeno ilaa shuruucdu waa ognahay aydan munazzala ma ahayne waxaan maslaxadeena iyo danaheena aan u samaysanay ahaayeen inaan dib u eegis marka lagu sameeyo oo ayagana la waafajiyo duruufta dhabta ee maanta jirto dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dawladda federaalka ah waxay rabtaa in fursad loo siiyo in ay qof iyo cod aado waa la daahay waa laga dhacay waa la yeelay dad baa meel iska joogayo kuwa meel ka dhacayo kuwa waxa soo dhamay waa wax shaqa taalo shaqadaas qabasho rabto inaan ku wada mashquulno shaqadaas waay nidaamkii inaan ku mashquulno xeerarkii iyo wixii ku haboonay aan dhameystirno maxaan ku yiraahdaa dadkii aan muxuu ahay wanaag iyo waxa soo socda u sheegno laakiin haddii aan u daarno muxuu ahay cabsi war haddii shalay dad yar ay go'aan gaarayeen ay noo shaqaysay maanta dad badan ay go'aan gaarayaan sida shalay ay noogu shaqaysay si ka fiican ay noogu shaqaynay bas waxaan u baahanaa inaan aamino dalka doorashadu aadaya waa qof iyo cod dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa codeynaya intiiba la gaari karo oo fursad loo helo
ولا وذا جاريا بقول كيف بقول مليهن لكن أنت هردتك النص دور جرت إن كبدن أو كبدن أو كبدن آدي وكبدن أي فرصة هريسة أو يكون عضيس يكون كلا دور تدتك تاسع مبدأ وأرنتاس ونجا مبدأ كان نقش ماله دي بقعد عد يوم حنكو رأي كتنزليد ماله دتك الصوماليات مستوى كسوجان مال كسوجان وقت قال الجو يمان تهور مركز دلك أصوص مينا ياهي صورة قل معها إن أو حكومين آني دورانين أيجا مبدئين وحويا دتك الصوماليات وحا أطلنا يو نين أي عط وردين صندوق هذو كحوم هذانا أيجا إسكانه هذو أفعنا هذانا أيجا إسكانه هذو كحوم هذا هالسجان وقت السي وقت كيس هالسجان هسكب بدل البري هذا هو ناكسن هذا أنا بري هسوع عشرين أو سوع وأقول في عن وقبر في عن وكو عشرين هذا لكن وحاربا يعني ضدك الله خلدن شعبك الصوماليات وحاربا أنا أشجع يعني بين الإدين شيء يعني بين الإدين شيء ما دعي كرتو أنت كذا هذا إنما جاك طلعنا إنما وروالا صوت تلوي شالك وجرا صوت تلوي xukunka xoogaa lagu raadiyo qorayaa lagu raadiyo dhiigaa loo daadiyo waa lagu heli waayey inaan wada hadalnoon heshiino markaan gaarnay 135 oday adeer reebel la yiraahdo oo ugaaska cideena suldaanka cideena garaadka cideena malaaqa cideena ayaan dhahnay talada loo gaaro waa ku heshiinay wixii uu noo gaarayna waa aqbalnay fiiri maanta markii ka dambeysana sidoo kale maantana sidoo kale waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ku heshiyaan shuruucda iyo nidaamka inay ku heshiyaan horaan u sheegay nin xoog badan dalkan kama tali karo sharci xoog badan ka tali karo shuruucda aan hagaajino aan xoojino aan ku kalsoonaan aan aamino cabsida aan yarayno kuwa muxuu dadka baabul khoofka iyo cabsida iyo ushido aan raalli ahaa aan dhahno oo meel walba taagan waxaan rabaa arintaas dadka Soomaaliyeed in ay sidaa u arkaan oo ay maxaan ku raad ka yimaadaan cabsida iyo shakiga la gelinayo ma jiro waa soconaynaa mid kasta waqti kasta wixii noo suurta galaan qabanaynaa doorashadaasna Ilaahay idinkiis waa hirgelinaynaa wayna hirgelay yaan la idinkaga been sheegin oo propaganda la idinkaga furin oo cunug yar oo maxaan ku raadaa irsaaqada ka gashay inuu wax xun la sheegayaan ay aadin iska daaya waa soconnaa waa soo soconnay meeshaan waxaan ku gaarnay dadka Soomaaliyeed rabitaankooda haddana rabitaankooda ayaan ku sii wadaynaa taas meeshaas inaan ku dhaafaan rabaa waxaan rabaa ayadana yani dabcan duruufaha dalkeena ku jira dhaqaale xumo dalkan waa ka jira la isku ma hayo laakiin xaaladeenna hoos u dhacday oo baahidiya badatay waa been waa run dad ay dhab ka tahay oo faqri ah waa jira dalkeenuna dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqri ku jira taas markaan dhinaca kale dhaqaalaha markaan si systematic loo xisaabiyo GDP-ga waxa la loo yaqaano lagu cabiro dhaqaalaha ummadaha iyo dawladaha boqolkiiba 50 in ka badan dhaqaaleena kor u kacay ama boqolkiiba 100 in ku dhow aan dhaho 4.2 mara 2 halkaas iyo 3 wax u dhow uu joogi jiray wuuna sii socdaa buga standardka dhaqaalaha lagu cabiro caalamka lagu cabiro waa suuqa marka dhex gashidood fiirisidna suuqa waa ka inta magaalada intiinan hadda meesha fadhida ee akhyaarta magaalada meeqa dhisma ka socota mashaariic dhismo oo waaweyn magaaladan Muqdisho hadaan midaal ka soo qaado meeqa ka socota mashruuc kasto dhisma oo socdaahay soo wiil Soomaaliyeed kama shaqeeyo kii wax shahaadi jiray kii lacagta shabaabku u aruuri jiray oo aruuri waayay kii waxadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo propagandada ee meel inuu fadhiisto ninna amaan ninna caabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waay khayr Allah idisiyo waxaan leeyahay taga dhismaha ee ka qayb gala magaalada Muqdisho bas maaha magaalo kasta fiiri bay dhaba dhismaha ka socdo baraawo dhismaha ka socdo kismaayo wadooyin jidad iyo dhismaha ka socdo bay dhaba sidoo kale wadooyin baraawo ka socdaan dhuusa mareebay ka socdaan joor meel walba oo dalka kamida mashaariic ka socdo aan shalay jirin shalay ma jirin mashaariicdaas wadooyinkaas ma dhismaynin daarahaas iyo dhulkaas iyo real estate maanta laga hadlaayo ma dhismaynin ma jirin nin walba guri yar oo finti
boqol 20 lagu dhufto 15 oo yaroo afar qol oo ka dhisanaya markii dhismo la dhisaa la dhisi jiray maantana meeqa dabaqaa dhismayso 20 meeyo 30 meeyo guri aad dabaqaa dhismayo apartments 90 boqol iyo jarjar apartment oo isku xiran ayaa dhismaya dad Soomaaliyeed ka shaqeeyo oo ka xamaash ganacsato Soomaaliyeed ka shaqeeyo iskara ka shaqeeyo wax walba magaalooyinkaas banaanka jira dawlad goboleedyada dhan sidaas horumarku uga socda oo wadooyin aad dhismayo oo maxaan ku raadayay dhul dad Soomaaliyeed ka shaqeynaya siyaasadda politics-ka lacagaha sida raqiiska oo sahlan lagu helo oo aan la shaqaysanin ama sida qaab darrada ah lagu helo ama shabaab laga helo ama xatooyo xoolo dadweynaha lagu helo waayo waxa la waayo inta dhimanna waa la sii waayna kuwaas hadii la yiraahdo nin shabaab u shaqeeyna shabaab ku noolaan maayo wadkiisu cunuha ku noolaaduha mid tuug ana sidoo kale noolaan maayo waa daba soconaa waana ka celinaynaa in muxuu ahay hantida ummadda inuu dhaco oo cuno dayrada waa laga fiican yahay aan jirin alxamdulillaah dalkeenu maanta meeshii aan rabnay ma joogo laakiin meeshii shalay meel ka fiican uu jooga sanadihii hore ee la soo dhaafay 2010 iyo wixii ka sii dambeeyay mar walba marka ka dambeysay waa sii kacay dalkeenu waa sii soconay waa dhaqaaluhu waa sii horumaray Soomaaliya maanta waxay joogtaa meel la soo aamino oo dad badan ay keensadaan maalgashi ay ugu yimaadaan dadka Soomaaliyeed waxa uu raad dhawaan dawladdu waxay soo cilaami doontaa mashaariic waaweyn oo maalgashi ah oo waaweyn oo aan ahayn daar yar oo la dhisay iyo muxuu wada yar oo la sameeyay ka waaweyn waxaas waxay tilmaam u yihiin kalsooni caalamku uu ku soo kalsoonaanayo Soomaaliya horay ayaan u sheegay caalamka wixii aan ku lahayn ama aan ka rabnay ama aan xuquuq ahaan u waa ka helowayna dadka Soomaaliyeed waxa annaga aan isku leenahay aan iska helno oo annagu aan is aamino oo annagu aan isku kalsoonaano oo annagu aan dawladnimada ku kalsoonaano yaana dawladnimada ka baqin ninkii colaada shalay ku dhiiranay maanta wuxuu ka baqaa nabadii warkii shalay nabad colaada ka baqayo oo dibka ku haysayo maanta nabadda ku dhiiro banaanku soo istaag waana loo soo istaagay dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan aad iyo aad ayaan u amaanayaa oo aan u bogaadinayaa dhiiranaanta ay muujiyaan ma kuwa frontiga jooga oo dhiigooda iyo naftooda hore kaliya laakiin kuwa magaalooyinka jooga xataa inay dhiiradaan oo codkooda ay kor u qaadaan waa horumar gabdhaha Soomaaliyeed si khaas ah waliba sharafay leeyihiin hooyooyin dhan ayaa meel u fadhiya maalin iyo cawo iyo maalin in sidii ay u taageeri lahayn u kaalmay lahaayeen ciidanka qalabka sida oo lacag aan budget dawlad laga bixin oo ay u tageen webelo adig intaan keen shirkad hebel intaan keen adigu intaan keen ay yireen inta isku dara deeq la siiyo ciidamada muxuu ahaa dagaalka ku jira frontiga jira ku sameeyay raashin qallalan hu dhar wax walba ugu badan waa gabdho taariikhdeena horena waa ogna xorriyadda maga qaadanayna gabdhuhu meesha ay ka soo mareen war gabdhuhu maanta ku daysay mudan yihiin ragga waxa haystana gabdhaha ha kaalmeeyo dhalinyaraduna wadadaas ha marto aan muxuu ahay dalka u wada istaagno aan ka shaqeyno mas'uuliyiinta iyo inta mas'uuliyadda ay saaran tahay oo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maxaan ku raadayay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo baarlamaanada dawlad goboleedyada iyo xukuumadda dhammaan ay ka mid yihiin waxaan leenahay war maanta dalka meel fiican oo maraa aan u istaagno waqti badan ma haysano waqti yaraan haysanaa waqti aan iska daanshoonno ma qabno 34 sanaan mareynaa aan gaarno meel fiican waa gaari karnaa aqoontii waa haynaa dhaqaalihii waa haynaa dadnimadii iyo fahamka waa haynaa bas shakiga iyo cabsida aan yarayna leh inaan kala shakino iyo inaan cabsanno oo waxa war nin wax qaada kara male waxa soo haray maanta dalka anaa madaxweyne ka ah beenlow nin dhintay iyo nin dheer oo marqaati u qabsadaa dadka Soomaaliyeed aan marqaati u qabsanaa iyo inta mas'uuliyiinta maanta wali joogta ee xilalka haysta qaarkood baarlamaanka federaalka ku jirta maanta qaarkood ama muxuu ahay jooga shalayaan madaxweyne ahay ayada oo hay'adaha dawladda oo dhan ay raali ka yihiin inaan 2 sano oo muddo kororsi ku darsano ayaan diiday maslaxa uma arkayna doorashaan galay doorashadii waa la iiga roonaaday waa la iga cod badiyay waa ogol ma sugin xataa
wareeg ugu dambe intii laga gaar xataa mugaan arkay trendiga doorashada u socoto maxaa loo sii waqti wax loo sii qasaarina meesha inta tagaan galeen galay see maanta qof iigu xantaa ninkaan meesha inuu iska joogo rabaa war shalayna ma joogin maantana ma raba laana inaan joogi karin aan aaminsanahay inaan joogi kara ma aaminsan inaan xaq u lahayn annaan raalli ahaanshaha ummadda Soomaaliyeed ayaan talada ku joogaa raalli ahaanshooda la'aantood talada lama qof joogi karto malaha maxamed saad barraa joogi lahay kuwii ku xogaa joogi lahay kuwa badan oo iga horreeya joogi lahay waqtiyaa la siiyey waqtigiyaan ku dadaalaynaa inay wuxuu ku yimaadaan hana lagala shaqeeyo inta la islu gooyo oo la iskala shaqeyn waayo hadhow yaana la isku eedaynin waqtiga waa dhammaaday wax lama qabo waa qaban karnaa waqtiga noo haraa nugu filan waa nugu filan yahay national levelka framework nationalka ayaana muhiim ah dowladda federaalka ah mandatekeedu inta uu jiro waxa ka soo haro dhan way fix gareyn kartaa wayna hagaajin kartaa laakiin iyadu haddii uu mandate ka dhaco ka bacdi ama mangoo si bariya ka dhiman yihiin ka bacdi aan wax hagaajina hadday dhahdo dee markaas waa khaldan tahay sanadkii koobaad oon talada joognay ayaan ku baaqnay dalka in doorasho qof iyo codana laga sameeyo dastuurkana la dhammaystiro intii aan ku taagannahay baarlamaankuna shaqo fiicanna way qabteen haddana weli waa u taagan yihiin inay shaqo fiican qabtaan waana ka wada shaqaynay tii hore tanna waa ka wada shaqaynaynaa dad fikir ka duwan qaba waa jira laakiin dee baarlamaanka wakiiladii dadka Soomaaliyeed baarlamaanka 330 qofood ayaa ah ayaga talada ugu dambaysa tala badan la leeyahay xukuumadda tala leh maamul goboleedyada tala leh talada waa badan tahay laakiin talada kama dambaysta ah waxa iskale baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka Soomaaliya na hal mid oo go'aano ku gaara cod la isma maquuniyo la isma diro la isma waxay waa la codeeyaa ninkii codkaasi aan raacsadeen fikir ka duwan uu qabi karaa laakiin haddii laga bato waa raaci waana qaacidada marka waxaan rajaynaynaa in uu amuru noo fududaan baarlamaanka shaqo fiican aad iyo aad fiican taramka hore qabtay taramkaana inta dhiman inuu dhammaystiro ayaan rajaynaynaa haddii alla yiraa doorashadan aan usii dhowaano waxa muhiimadahaasi u kala leeyihiin hawshu siday hortaminta iyo muhiimadaha u kala leedahayna inaan u kala hormarinaan rabnaa dib ma jiro dalka aan maanta ku jirnaahay aan dowladna u nahay shacabna u nahay meesha uu maraayo iyo jihada uu jeedaahay meel laga dayraya ma ahan wax waa noo dhiman yihiin waxa noo dhimanna dadaalkeena iyaan kula imaanaynaa ilaahayna waa kaashanaynaa mar kale waa idiin mahad celinayaa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu